بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin haysa waxaa u dooran wafdi oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray Gurceel iyo kulamo xalay ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud shacab is abaabulay oo dagaal culus la galay kooxda al-shabaab soona furtay hub iyo caruur ay al-shabaab haysteen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo kulamo ka wada Muqdisho iyo madaxweyne xaaf oo kulan la qaatay wakiilka igad Soomaaliya dowladda Mareykanka oo ku dhawaaqday taageero culus oo ay u fidinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland oo joojisay shir looga hadli lahaa arrimaha Soomaaliya wararka dibadda ee warbaahinta isha wararka daawadayaal idin haysa waxaa u dooran dowladda Iiraan oo dishay basaasiin u shaqeynayay Mareykanka daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka kuwada ugu door korona haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube-ka fadlan subscribe oo rukmo si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka markaan soo galino barteena YouTube-ka markana daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa lagu soo dhaweeyay shalay galinkii dambe magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud Xasan Cali Kheyre oo kumanaan dadweynaha iyo mas'uuliyiin dawladeed oo soo dhaweyntiisa isugu soo baxay kula hadlay goob fagaara ayaa mahadcelin kadib waxa uu warbixiyay qorshaha socdaalkiisa Galmudug iyo guulihii la gaaray intii uu waday wadashada uu bulshada kala yeelanayay dhismaha dowlad goboleedka Galmudug loo dhan yahay waxa uu ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan qorshaha dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay'adaha Galmudug sidoo hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale ku baaqay in si shuruud la'aan loo joojiyo colaadaha dhiig uu ku daadanayo ee ka socda deegaanada hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Xasan Cali Kheyre ayaa intii uu marayay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxa uu kulamo wada tashi ah la yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan si uu dhageysto talooyinka iyo tusaalaha dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo loo dhan yahay Kheyre ayaa horay waxa uu tagay deegaano ay ka mid yihiin Dhuusamareeb Cadaado Caabudwaaq Huurshe iyo Xeraale intii uu joogo Gurceel waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiinta deegaanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Gurceel waxaa la filayaa in magaalada Gurceel oo la sheegayo in ra'iisul wasaaraha uu kulamo xalay kula qaatay xubno ka tirsan Galmudug oo ku sugan Gurceel uu kula hadlay sidii loo taageeri lahaa qorshaha dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka doonayso Galmudug oo dhameystiran waxaana uu ugu baaqay odayaasha deegaanka in si degdeg ah ay uga qayb qaataan joojinta colaad beeleeda haatan laga sheegayo deegaanada hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kooxda Macawisleyda ayaa waxaa la sheegayaa in dagaal ay la galeen cutubyo ka tirsan kooxda al-shabaab wararka laga helayo tuulooyinka Garasyaani iyo Booco oo bariga gobolka Hiiraan dhaca ayaa tilmaamaya in halkaas ay ku dagaalameen dadka deegaanka gaar ahaan koox Macawisley ah oo ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo koox ka tirsan al-shabaab Macawisleyda oo la hadashay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in halkaas uu jab xooggan ka soo gaaray kooxda al-shabaab oo sida hadalka u dhigeen duulaan ku soo qaaday kooxda Macawisleyda oo halkaas ku dhaqan iyagoo inta raacay in arkeen qaar ka mid ah meedadka kooxda al-shabaab sida hadalku dhigeen isadan ayaa ka dhalatay markii sida la sheegay isku dayeen al-shabaab in xoolo iyo dhaqaale ka qaadaan dadkaas taas oo al-shabaab ay ku sheegeen sakawaad saraakiisha kooxda Macawisleyda ayaa sheegay inay ku qaadeen tuulada Xaaji Cali howlgal oo hoos tagtay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale saraakiisha la hadashay warbaahinta dawladda ee kooxda Macawisleyda waxay sheegteen in hub iyo caruur ay kooxda al-shabaab haysatay ay soo furteen sida hadalku u dhigeen waxay tilmaameen caruurtan ay silsilado iskula xirnaayeen isla markaana si qasab ah looga kaxeeyay waalidiintooda sida hadalku u dhigeen sargaalkan la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu intaas ku daray in ay sii kordhin doonaan dagaalada ay kula jiraan al-shabaab kana saari doonaan deegaanada hoostaga Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe dhanka kale ma jiro ilaa hadda wax hadal oo ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan dagaalkaas dhex maray Macawisleyda iyo kooxda al-shabaab 24 bishii tagtay ayay ahayd markii kooxda la magac baxday Macawisley ay shaaciyeen in al-shabaab ay ka soo furteen in ka badan 30 ruux oo xirnaa kadib dagaal ay kula galeen agagaarka magaalada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya kooxda Macawisleyda waa koox shacab ah oo ka dhalatay
deegaanada maamulka Hirshabelle waxayna dagaal adag ay la galeen kooxda al-shabaab. Madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu kulamo ka wadaa magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa kulan la qaatay wakiilka urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Guyo waxaana ay ku kulmeen Muqdisho. madaxweynaha iyo wakiilka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xaaladda Galmudug. madaxweynaha ayaa ugu warbixiyay wakiilka xaaladda Galmudug xilligan ay ku jirto iyo waxyaabaha uu qabsamay muddadii uu joogay. waxa uu sheegay in guulo badan la gaaray ugu horeyso nabadda. wakiilka ayaa bogaadiyay dadaalada uu sameeyay madaxweynaha Galmudug iyo horumarka uu gaarsiiyay Galmudug iyo sida uu u ballaariyay maamulkiisa oo uu ku soo daray maamulkii Al-Sunna. waxa uu ballan qaaday in ay kala shaqeyn doonaan arrimaha dib u heshiisiinta ee uu madaxweynuhu ka dhawaaqay si dhowna kala shaqeyn doonaan sidii Galmudug loo horumarin lahaa. dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka dalka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ben Fender. madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee uu hadda dalka marayo iyo in la helo xasilooni siyaasadeed. waxa uu bogaadiyay safiirku sida uu madaxweynuhu ugu shaqeeyay wada deganaanshaha iyo in la nabadeeyo magaalada Gaalkacyo iyo guulaha uu ka gaaray wada hadaladii iyo dib u heshiisiintii maamulka Al-Sunna, taas oo keentay in maamulka Al-Sunna uu ciidamadiisa ku wareejiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale waxa uu sheegay safiirka in uu u arko guul u soo hoyatay Galmudug kuna timid dadaal badan uu sameeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. madaxweyne Xaaf ayaa sanad iyo bilooyin kadib markii uu Muqdisho yimid waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mareykanka ayaa dib u bilaabay taageerada uu siin jiray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga. war ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa looga hadlay taageeradii ay siin jirtay qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taas oo la hakiyay bishii December sanadkii 2017. dib u bilaabidda taageeradii dowladda Mareykanku ay siin jirtay qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay muujinaysaa sida ay miradhal ugu noqotay dib u habeyntii ciidamada lagu sameeyay iyo diiwaangelintii lagu xaqiijiyay tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xukuumadda Washington ayaa ku ammaantay dowladda Soomaaliya dadaalkii ay ku bixisay dib u habeyntii ay ku sameysay ciidamada kadib markii dowladda Soomaaliya ay sameysay diiwaangelin ku aadan xaqiijinta ciidankaas tirkoobkooda. Mareykanka ayaa muujiyay sidii loogu guuleystay isla xisaabtanka iyo hufnaanta maamulka maaliyadda ee dalka, taasi oo abuurtay in lagu kalsoonaan karo nidaamka ay dowladda Soomaaliya u dejisay sida loo maamulo dhaqaalaha ciidamada. Mareykanka ayaa ka mid ah wadamada taageera Soomaaliya waxaana kaalintan uu Mareykanku qaadanayo ay dhiirigelinaysaa xoojinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliya. ugu dambeyntiina Somaliland ayaa joojisay shir looga hadli lahaa arrimaha Soomaaliya. maamulka Somaliland ayaa joojiyay kulan lagu qaban lahaa magaalada Hargeysa kaas oo qayb ka ahaa mashruuca SSF Somali Stability Fund oo ah sanduuqa xasilinta Soomaaliya kaas oo hoostaga wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. war ka soo baxay wasaaradda qorsheynta Somaliland ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba ay shirkaas joojiyeen sabab la xiriira in iyagu aysan waxba ka quuseyn arrimaha Soomaaliya isla markaana mar hore ay ka go'een Soomaaliya. sidoo kale waxa intaas lagu daray in mashruuca la yiraahdo Somali Stability Fund aysan ka helin wax ogolaansho kaas oo ay ku qaban karto kulankaas. waxaana xogeynta SSF Somali Stability Fund oo ah sanduuqa xasilinta Soomaaliya lagu wargeliyay inay deegaanadooda dib ugu celiyaan dadkii loogu talagalay inay ka qayb galaan shirkaas. warkan ka soo baxay Somaliland ee lagu joojiyay shir looga hadli lahaa mashruuca xasilinta Soomaaliya ee hoostaga wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaanan ilaa hadda aysan ka hadlin dowladda federaalka ee Soomaaliya. halka warkaas daawadayaal uu idinkaga imaanayo waa warbaahinta isha wararka markana wararka dibadda. Iran ayaa waxa ay dishay sida wararka lagu helayo basaasiin u shaqeynaya Mareykanka. dacwad oogayaasha Iran ayaa dil toogasho u raadinaya dhowr qof oo ku jira militariga iyo hay'adaha nukleerka kuwaas oo sanadii tagtay loo xiray tuhno la xiriira in ay basaasiin u hayeen Mareykanka sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Iran ayaa bishii Agoost ee tagtay sheegtay inay xirtay 10 basaas oo ka tirsan hay'adaha dowladda kuwaas oo in badan ka mid ah haysta dhalashada dalal kale. Iran ayaa bishii June dishay qandaraasle horey uga shaqeyn jiray wasaaradda gaashaaniga kaas oo lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa
hay-adda CIA ee Mareykanka. Afhayeenka cadaaladda Iiraan ayaa sheegay in tuhmanayaashan la xiray wax ka yar sanad ka hor ay wajahayaan dil toogasho iyaga oo lagu maxkamadeynayo maxkamad military. arrintan ayaa imaanaysa xilli ay sii kordhayso xiisadda ka dhex ogan Mareykanka iyo Iiraan, iyadoo Tehran ay sheegtay inay gudubtay xaddigii loogu talagalay inay haysato macdanta uraniumka ee la naaxiyay. warkii oo daawadayaal xilligan idinkaga imaanay warbaahinta Isha Wararka waa nageynta.